الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزير كحيانك وسارة أرمها قدها حلبان هذا قرها وكيل هذا حلبان محمد علي حرسي هي حلبان جامع حسن آدن بڑا صاحب کا آن حلق کلو وريگيو بڑا صاحب رماح مير کا عاصمت قبل كتقدر محمد مراد قدومي كحيين كقبل كا قدومي كحيين كدقمدة دمان حلبانة قرها دقان كا دقمدة برعو قدوميها أهنا مير كعاصمة قبل كقبيلي walaalkay maxamed amiin cumar cabdi iyo dhammaan xubnaha golaha deegaanka ee la socda ee safarka nagula jiray isu duwayaasha gobolka dhammaan shaqaale weynaha gobolka dadweynaha bulshada qaybihiisa kala duwan oo ay ugu horeeyaan cuqaasha salaadiinta indheer garadka aqoon-yahanka haweenka dhalinyarada bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal runtii maanta waa maalin weyn waxaan xilkii gobolka togdheer kala wareegayaa badha saabkii 11aad maxamed cali saleebaan rabaax ilaa iyo intii lagu soo noqday waddanka lagu soo noqday gobolka waxaa iska beddelay 11 badha saab anigu waxaan noqon doonaa sidoo kale meeyarada soo maray in laga soo bilaabo maxamed xuseen aadan ilaa iyo maxamed muraado maanta jooga waa 8 maayar walaalayaal waxaan idiin sheegayaa dhammaan madaxda gobolka soo martay intii ay gobolka joogeen inaan anigu la shaqaynayay si wanaagsan aanu u soo wada shaqaynay hadday badha saab tahay iyo hadday maayar tahayba walaalayaal dadweynaha reer togdheer waxa weeyaan maanta waanu dardaarmaynaa dardaaranka qofkii jabiyo waxaan leenahay ninkii reerkeenna wax ka hagradow qoodhaa iyo xaradaaba jabtay anigu ka guddoomiye ahaan anigu waxaan idiin ballan qaadayaa dadweynaha gobolka togdheer inaanu cadaalad sameeyo ilaahay baa la hubaa waxaan hubaa inaan idin cadaalad samayn doono qofna aanan xaqiisa ku joogsan doonin qofna xaqaanu lahayn aanan sii doonin walaalayaal waxaan ku faraxsanay inaan maanta imi oo aan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan ugu mahadnaqaya inuu mar labaad ii soo igmaday inaan wakiilka dawladda u noqdo gobolkii togdheer magaaladeydii burco een dugsiga hoose ka galay ee aan dugsiga sare ka baxay ee aan ku dhashay ee aan ku dhaqay ee aan intaasoo dhan dhex joogay walaalayaal dun carbeed siduu yidhi diric keli ahaantii dareel guusha kama hele dadkaa geesi lagu yahay walaalayaal anigu waxba ma qaban karo nabadgelyo kama shaqayn karo horumar gobol kama shaqayn karo haddii aanan taageeradiinna barbar istaaggiinna haddii aanan helin waxba ma qaban karo waxaan ka codsanayaa dadweynaha reer togdheer inay ii ballan qaadaan duhur baynu joognaa inay ii ballan qaadaan inay la shaqeeyaan inay ii ballan qaadaan inaanay iila imanin wax cadaalad darra oo iyaguba ay ogyihiin walaalayaal nolosha bulshooyinka ama mujtamaca waxa ugu horraysa nabadgelyada waxaan ballan qaadayaa nabadgelyada gobolka inaan ka shaqayn doono cid kasta oo nabadgelyada gobolka khalkhal gelinaysa afkuu doonto ha sheegto qofkuu doono ha ahaado waxaa ballana inaan gacan bira wax kaga qabanayno walaalayaal maanta reer burco waxay beeneeyeen brobagandhada iyo dacaayadda lagu tuurayo gobollada kale ee dalka oo la leeyahay burco way kala xidhantay burco waa laba qaybood waa been laba burco ma jiraan saddex burcana ma jiraan burco kala xidhana ma jirto doorashaynu gallay
waa ogtihiin burco marxaladahay soo martay iyo ee ay ka soo baxday maanta maalinay ka wanaagsantay ma jirto haddii lafa timireed doorashadii laysku yaro tuurtuuray waynu ka saaraynaa dadkeediina waa kuwan war soo saa ma aha waxaan walaalayaal kaloo jecelay halkan inaan idinka ballan qaado dhulka seerayaasha ah degsiimooyinka cusub wareegtadii madaxweynuhu soo saaray wareegtadii uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maanta oo aynu wada hadlayno yaynaan isugu imanin degsiimooyin cusub degsiimo dambe oo cusub oo aynu isugu imanaynaa reer togdheerow ma jirto dhul dambe oo dhulkii daaqeenka ahaa ee xooluhu inoo daaqayeen oo uu qof iska ooto isugu iman mayno waxa weeyaan goor kulul baad joogteen waxaan jecelahay halkan inaan idinka mahadnaqo soo dhowayntii wanaagsanayd ee aadna soo dhowayseen dhammaantiin bulshada qaybaheeda duwan waan idinka mahadnaqaynaa waxaan kaloo jecelay hal qodob inaan ku noqdo qodobka sixir bararka go'aamaa laga soo saaray muddo 45 cishaa gudahood bay go'aamadaasi ku dhaqangeli doonaan ciddaydan ugu jirtaa waa dadweynaha weeye waa shacabka weeye waa danyarta weeye waa shaqaalaha dawladda weeye waxaa inoo ballana inaynu hawshaa innagoo midaysan oo ilaahay la kaashanayna inaynu fulino aad iyo aad halka waxaan jecelay inaan uga mahadnaqo mar labaad madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo xilkan ii soo imaday salaanna waan idinka sida haddaad tin dadweynaha gobolka togdheer waxaan halkan uga mahadnaqayaa oon mar labaad oo mahadnaqayaa meeyarka caasimadda gabiley maxamed aamin cumar cabdi golaha deegaanka dhammaan dadweynaha gobolka cagaaran ee gabiley waan u mahadnaqayaa walaalayaal waxaan kaloo idiin sheegayaa inaynu midayn doonno oo mataanayn doonno labada gobol ee togdheer iyo gabiley aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu